mursal waxa waaye shaqa sugayso waxa waaye reerkan rabo in xid la noqdo waxa raba inaan idin sheego horta xiriir oo caadi sheeko way ka dhaxaysaa laakiin guur ma maleynay maxay cidaana si fiican u aqaana marka qisada marka idin ku soo celinaa labada gabdhood walaalo way aaboodna waa kana ladan cid aabeed waa kaasa waxa waaye odayga dhibaato xitaa mursal haduu doonto dhibaato uma imaanayo odaygan laakiin ladan hooyadeed waxa dhibaato u imaanayso hadda idin si sheegaa ladan hooyada aad u kulul way idin sheegi doonaa ladan way isqarisaa oo ayda iyo amiir waxa waaye was ogyihiin walaalihiin laakiin waa isqariyaan barnaamij sir badan soo wada odaygan marka idin ku soo celinaa waa ladan waxa Malaysia u dir jaamacadda odaygan waaye oo mataqaan odaygan agaasimaha waaye waxbarashadu haysi jiray oo Djibouti college weyn magaciisa idin sheegi doonaa madaxu ka ahaan jiray ninkan aad loo yaqaan waaye haddana ganacsade yar waaye Axmed Eer Allah odaygan qisan markaan ka soo sheekay walaalayaal 2015 bilowgeeda u maleynaa sanadka hore bilowgiisa ama 2014 dhamaadkeeda aad iyo loo daawaday 600 kun ka badan daawatay qisada markaan ka soo sheekeynay waxa waaye amiir iyo ladan waxa waaye xitaa ciise badan maysan ogeen kadib waxa la qabsaday ladana la qabsaday waxa la hay amiiro wariyo waaye sir badan waa soo wada idinka ayaa doontiin ladan waxa la yiri wariyo waaye la wariga intaan suuq ma soo galin shariif soo ku ogaada adiga sheegtay oo aad social media soo gashay oo waxaan dhahay ladanay dhibkan adiga waaye ladan waxay tiri ana shariif ma aqaano adiga buuqa imaade sababtan wax kala ma ahan waxa waaye bahda oo amiiro hooyada macnaha iyo bahdan ladan hooyada macnaha isku ma fiicno macnaha waa xifaartan ficila ka dhaxay oo ladan amiiro hooyada taa waa la furay oo waxa lagu qasbo odayga inuu furo odayga ladan hooyada way ka adag tahay waa aad u kurasha ladan hooyada waxa waaye shan carruur haysa ladana weyn wiilka yar hata had jaamacada loo dir oo ladan ka yar hal san laba san ka yahay ayada u dirtay macnaha waxa waaye waxa lagu eedeeyay odaygan inuu ladan bahda ladan inuu u roon yahay waxa rabaa inuu u sameeyo gabdhaha waxaan ku dhahay kuwa hadda soo weynaan ladan la dhashay ayadana waxbarasha loo diraa odaygan waxaas lagu eedeeyay waxa waaye odaygan wuxuu dhahay aniga kulli waa ii sameeyeen saas camal macnaha amiirada macnaha iskuma fiicneen ayadii aabeed hataa maamada oo amiiro dhasha ku dirta hataa odayga iskuma fiicneen macnaha laakiin amiiro iyo ladan caadi waa isku fiicnaan saaxiibi ahaayeen macnaha dad isku fiican oo walaalo ah haddana saaxiibi ahaayeen macnaha laakiin ilmaha kale badanaa isma galgalaynin horta reerkan saas waaye macnaha labada bah isku dhaxsanaa sababtaa keenta marka in la dhahayo warkaan yaa suuqa soo geliyey macnaha sirtaan yaa sheegay oo shariifka soo ku ogaan karaa shariifka ilan isaaq waxa ciise badan oo Djibouti degan arintan ma ogeene soo shariifka ogaan karaa meesha buuq ka imaad meesha ladan lagu qabsaday meesha ladan lagu qayliyo wixii tirana shariif ma aqaano saasir markay Djibouti si badan soo wada idinka yaa doontii wax badan sheegi doonay markay Djibouti imaad ladan waati wareys laga qaaday ka qaada walaashada ka qaadays ayuu qoslaayo macnaha waxa waaye taas waaye waxa waaye marka waxa waaye hadda waxay keenaa marka odaygan walaalayaal nin caan waaye waa la yaqaanaa dadka qaarkood ciise u maleeyaan waxa waaye odaygan waa Soomaali Isaaq Ayuub waaye qabiilo badan oo Isaaq oo habar awal u badan sidoo kale dhulbaanto badan samaroon badan daaroodkan kale waxa waaye Djibouti markay imaadaan ciisaas waaye sababtoo warqadda aasaas waa macnaha qofka wadanka sharci macnaha shaqo ma sii karo waa inuu qofka ciise yahay ama waa inuu carfan yahay hadduu qofka imaadaan ka hadlayna soo dago taqaana ma aan qof ku dhashay laga hadlayo qof ku dhashay 30 sano ama 4 sano wuxuu rabaa noqday isaaq wuxuu rabaa noqday hadduu Djibouti ku dhashay qofkaas Djiboutiyan way dhalashada automatic uu leeyahay laakiin qofka imaadaan ka hadlayna marka laba gobol aan laga bixiyaa waxa laga bixiyaa gobolka Cali Sabax way ciise badan way yaqaanaan iyo gobolkan kale oo la dhaho taqaana dhigil fiqh xasaas oo taqaana nimankan xarfatay degayn labadaas gobol laga bixiyaa qofka wadanka imaaday oo raba inuu dhalasho qaato macnaha gabar ciise markaad guursanayso gobolkaas tagaysa dhalashada ka soo qaadanaysa wadanka u dhalatay baadiga marka waxa adiga dadka saas waaye dad badan oo ganacsato waaweyn oo habar awal iyo habar yoorisa ka buux Djibouti saasay ku qaateen warqada saas waa macnaha laakiin nin dhalada oo Isaaq Ayuub odaygan aad loo yaqaana odaygan wuxuu ahaa agaasimaha wuxuu ahaa mataqaana college-ka xaafad xaafad weyn aad loo yaqaano dowladka Djibouti balbala la waxa waa agaasima college la ayo qana Fikisawa odaygan agaasimka muddo badan kadib waxa loo bedelay wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta oday waxbartay waaye qan agaasime laga dhigay kadibna waxa laga dhigay la taliyaha qaaska wasiirka waxbarashada iyo mataqaana tacliinta sare taas marka waxay keentay u fududeyso odayga inuu wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta iyo jaamacada odaygan awood ku yeesho aad loo ixtiraamo oo oday waxbartay gabadhiisana asaadir ladan asaa u diray Malaysia oo waxbarashada soo dhameysay wiilka ladan asaa diray hadda wadamadan wad kamid xukuum qeeyay Malaysia wadamadan adiga China iyo meelahaas u maleynaa Indonesia ku maqeeyay ladan walaalkeed taqaana horta odaygaas waa oday culus oo heer magaal oo beezana waa odaygan waay waxa waaye marka ladan hooyad waa kulushahay aad u kulushahay
taqaanaa arooska ujeediin ladan ma gelgelaynin maxaa yeelay amiiro hooyadeeda joogtay oo faransiiska imaaday amiiro hooyadeed faransiiska ka imaaday arooska ayadaa dhaha ku qasabtay odayga inuu imaado inuu galbiyo gabadhiisa macnaha saas odayga u yimid oo gabadha galbinayo macnaha si uu u tuso inuu gabadhiisa jecel yahay in bahdi kulli in ilmaha inay u siman yihiin taqaanaa waxa waaye lada marka geesgeesa u bixiysa macnaha ladan hooyadeed iyo amiiro hooyadeed iskuma fiicno macnaha labada baha aan isku fiicnayn macnaha oo ficil xifaartana ka dhexeeyey taqaanaa horta saas Soomaaliya faata laakiin labadan gabdhood laba gabdhood oo isjecel oo walaalaha oo macnaha waxa waaye saaxiib hoosana isla away ay wax xumaan kama dhaxayso laakiin labada hooyo way taas ma fahanteen taqaanaa ladan hooyo kulula dhashay aad iyo aad kulula dhashay taqaanaa Ismaaciil geelo jufadiisa hoosena isxigaan ladan hooyadeed umalina inay yeelayso mursal shaqa ku sugaysa baaba ilaahay oo ku fudeena ilaahay ku fudeena horta odayga dhibaato hadda ku sheeg odaygan dhibaato kaaga imaanayso laakiin maamadaas maamu kulkulul way wallahi warka isku soo duub markasta waxa qeyr ku rajeynaa waxaan ku leenahay hambaliyo gabadhan gabar fiican way gabar culus way gabar heen magaalo Beezani way ladan adigana culusaa tahay oo aad u culusaa tahay mursal marka inaas calafsataan aniga asxaabteeda waa inaan hambalyeynaa alla calaf isku keen daro maamadaas leh waxa waaye shaqa ku sugay salaamu calaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh